Isticmaalka baraha bulshada ayaa soo xana qaaday 10kii sano ee ugu dambeysay, gaar ahaan Soomaaliya, waxaana dhacda xitaa sida ay dhalinta ugu ogaadaan inuu reer magaal yahay. Waxaa la weydiiyay inuu leeyahay Facebook, WhatsApp iyo iimaha. Haba ugu badnaato Facebook oo noqday meel wararka xitaa loo raadsado. Marka aan joogno oo kale xamar uu qarax uu ka dhaco. Haddaba isticmaalka baraha bulshada muxuu ugu dhagan yahay dadka isticmaala. Zakariya Cabdillaahi Faarax ayaa qaba inuu faa'iido leeyahay. Sababaha uu faa'iidadaas u leeyahay ayuuna iyaga waramay. Faahin hadda kaga baxsho horta Facebook saas uma isticmaalo inta badan horta WhatsApp iyo aad u isticmaala laakiin Facebook marka uu soo laabto Facebook adduunyada muxuu ka yahay hadda popular aad loo isticmaalaa dadweynaha dadkaaga qaraabadaada tolkaaga meel walba joogo. hadda wax la isweydiiyo ciwaanka Facebook ma leedahay, Facebook ma isticmaashaa, taasoo adigana ku kalifayso si dadkaas xiriir u la sameeyay in Facebook ay isticmaasho. asaga naftirkiisa waxyaabo badan iyo barnaamijyaal badan oo faa'iido leh uu leeyahay oo hadda u fiirisid wacyigelin caafimaad, wacyigelin bulsho, sports, waxyaabo badan oo faa'iido leh xataa waa ka helaysaa. Iswaan uu dhiirigelinayso dhalinyarada intooda badan inay isticmaalaan barta Facebook. Waxaa jira mararka qaar dhaliilo loo soo jeediyo isticmaalka baraha bulshada, sida inuu dadka isticmaalo uu waqtiga ka qaado, hablaha oo kala sawir in laga xado lagu faafiyo iyo waxyaabo kale, sida uu qabo Maxamed Cabdillaahi Faarax. Maroo ku daray waxa ka aaminsanahay si gaar waxa uu aaminsan inuu yahay faa'iido dar bulshada weyn oo ku hayb iyo waqtiga aad iyo aad u afeeyo dhalinyarada waqtigooda, qaasatan hadii qofka dhalinyarada markuu wax qabsan lahaa markuu rabo inuu wax qabsado hadii waqtigii oo wax qabsan lahaa uu ku mashquul social media kale haduu wax baran lahaa hadii tahay waxyaalo kale faa'iido oo qabsan lahaa wixii oo dhan waqtiga isku dhimaad. marka xaq caafimaadna waa leedahay oo caafimaad darweyn waa leedahay oo qofkii uu timaatay oo wixii oo si tabatakna wuxuu dareemayaa wax la ahayd loneliness gal ahaansho qofkii inuu galin oo ku biishoonayso xaq maskaxda waay saaxiib wuxuu ka dhigtay social media isdhexgalka dhaqanka bulshada Soomaalida hadii oo Soomaaliga oo waxa ay caan ku tahay in oo galbi casirkii la soo baxo kala la sheekaysto isdhexgal qaxweyso shaaxisto sidaas waxay u muuqataa inay yareynayso bariyaan marka waxa dhilahay marka qofka ultimate wuxuu kuma inuu kaliya noqdo way saaxiib wuxuu ka dhigtay inuu isticmaalo inuu isticmaalo social media. Waalidiinta qaar ayaa gabdhahooda ka ilaaliya isticmaalka Facebook khatarta uu lahaan kara awgeed. Dhinaca kale waxa ayana jira waalidiin u isticmaasha baraha bulshada inuu faa'iido u leeyahay iyaga iyo ubadkooda oo iyagoo laba dal ku kala nool ay ku wada xiriiraan. Xuseen Khaliif Xaaji oo waalidiinta Muqdisho ku nool kamid ah ayaa iga sheekeeyay habacsanaanta ku timaada wiil uu dhalay kadib markii uu bilaabay isticmaalka baraha bulshada. waa jiraan aniga hadda kula hadlaya wiilka 16 jir bay ugu weyn wana wiil waxa arkaysaa markii oo hadda oo mobile markaan u soo gaday intii ka horeysay kaalmo gali jiray kaalinta ugu koobaad buu gali jiray quraankana uu ka gali jiray iskuulkana uu ka gali jiray. hadda si mobile kaas loogu soo gaday ama Facebook iyo baraha bulshada uu macnaha uu xiriir ula yeeshay kaalintii 8 buu galay. hadda 8 ma dhowda 8 buu galay ilaa inta soo amal isticmaalaa adoo 2 sano meelaas isticmaalaa ka badan isticmaalaa. marka taasa kamida waxa kamida waa wax badan oo aan ogahayo ayaa kamida oo macnaha oo barnaamijyadaas oo kale oo madariska marka dibkiisu badan yahay dibkiisu aad u badan yahay. Gabdhaha isticmaala baraha bulshada waxa iyagana lagu eedeeyaa inay si aan anshax ahayn ugu soo muuqdaan goobahaasi, sida iyagoo aan asturnayn ama qabaa'ilo ku caayaan. Deeq Xuseen Cabdi ayaan weydiiyay ilaa intii ay sharafta hablaha wax u dhimi kartaa arintaas. والله شرفت مركلية هذا لو ما وحويان قف ولي بشرف رجل دمر شرف ويودليهن قف ولي في عن إنه سمعديس إلى الشضاء مركزي ونكفكر وحيابه أو سميناه هذا وفي عنها قفكو إنه مركزي هدي ودمر على يدور رجع على وحيابه أو سميناه إنه مركزي كتحضره هدي سوشيال ميديا هلا تشوجب عم مال كلا بلتشوج لكن أنا مركان واحد يردونه صار أنت السوشيال ميديا طبعا قبله أنت كسر الأمازونين أنا كذا قهان إني كلام قبله مركزي أيوه
u badan oo markaasi sameeya waxyaabo xunxun baraha bulshada ku baahiya ma aaminsani hadday jiraan waa hal iyo labo wax markaasi gooniyo hadda ragga sameeya kaga duwan yihiin ma dhihin karo waayo waa xumaantii waa la wada gala sooma cabdiraxmaan shariif cali oo ka mid ah dhalinyarada ka qalin jabisay jaamacadaha muqdisho midkood ayaa wuxuu sameeyey cilmi baaris ku aadan faa'iidada ama faa'iido darada uu lahaan karo isticmaalka baraha bulshada waxaan weydiiyey natiijada ka soo baxday cilmi baaristaas uu sameeyey sax waa way jiraan waxyaaba iga soo baxay cilmi baaristaas waxaa ka mid ah dhowr qodob waxyaaba badan iga soo baxay marka aan sameeyey cilmi baaristaas natiijada aan ka helay oo waxaa ka mid ah dadka ugu badan ee isticmaala social media ay u dhexeeyaan da'doodii 18 ilaa 35 sidoo kale waxyaabaha iga soo baxay ay ka mid yihiin meelaha ugu badan loo isticmaalo qof walba wuxuu ku isticmaalo goobo kala duwan balse waxyaaba meelaha ugu badan lagu isticmaalo internetka ama aaladda ay u badan yihiin guriga waxaa soo labay goobaha shaqada iyo waxbarashada heerka markii laga hadlayo heerarkana way kala duwan dadka ugu badan macnaha marka cilmi baaristan aan sameeyey iga soo baxay dadka wax bartay ama dadka waxbarasho jaamacadaha dhigtay iskuulada waa cabirada 60% dadka ugu badan isticmaalka social media waxaa soo labay dadka oo caadiga oo guriga jooga ama dadka shaqeeya marka waad dareemi kartaa meeshii loo badan yahay sidoo kale waxyaabaha ugu badan waxyaabaha aan natiijadaas ka helay ama cilmi baaristan iga soo baxay ay ka mid tahay 40% in dadka ujeedka macnaha 45% aan yiraahdo in loo badan yahay dhanka social media inta ka soo hartana loo qalqaybiyay dad isticmaalo marka internet markii la soo galayo qofba ujeed u soo gala dadka qaar hadda aniga waxa laga yaabaa marka internet galo in aan page booqdo oo akhbaaraad oo kale qof waxa laga yaabaa inuu cilmi baaris ama waxyaabo kale qof waxa laga yaabaa aflaam qofba si uu macnaha qofna social media marka meeshaas waxaa ugu badan macnaha bulshada Soomaaliyeed maaha bulshada kale bulshada Soomaaliyeed meelaha ugu badan yihiin isticmaalka internetka ay tahay macnaha dhanka social media markii laga hadlayo social media isticmaalkiisi horta labada dhinac uu leeyahay khasaare iyo faa'iido hadba waxay ku xiran tahay qofka si uu la macaamilo ama si uu u isticmaalo social media